shuruudaha jaamacadaha Sacuudiga guud ahaan waa iska agdhow yihiin haddana shuruudaha wayna kala badan yihiin wayna kala yar yihiin jaamacad waxaa laga yaabaa shuruudaha inay ziyaada yihiin wax badan ay ku jiraan jaamacadaha qaarkiina shuruudaheeda saas ma baasaboorka iyo shahaadada markaas aad u xariisid waxaa laga yaabaa ardaygaba inay geynayaan ugu talagaleen macadka oo carabi lagu barto ama jaamacadeenan ama jaamaca islaamiya markii laga hadlayo shuruudaheedii waxaa ka mid ah shahaadada dugsiga sare waliba shahaadada dartii dowladda wixii kale waa la joojiyey shahaadada qofka hadduu macad sharci ka baxana raabitada macaahid sharciyaa jirto oo shahaadada meeshuu ka qaadanaa weliba jaamacadda waxaan igu maqaalaa sanawaadkii ugu dambeeyay aan maqlaayay inay hayaan linkiga jaamacadda oo ardaygii macad sharciya ka soo baxa Soomaaliya gudaheedii magaciisa meesha gelinayaan waxa uu soo baxaayo ardaygaasi macadka uu ka soo baxay iyo waqtiga uu ka soo baxay macluumaadka haddii magaciisa meesha laga waayo shahaada noocaas uu wato raabitada uu wato waxa laga yaabaa in lagu soo celiyay in warkaas aan maqlaayay ayaan sanawaadkii ugu dambeeyay ardayda caqabadaha ugu weyn oo meesha ay ka haysato waxaa ka mid ah taskiyooyinka markii la leeyahay laga yaabaa inuusan fahamsanayn ama dii kale uusan yani iska fudud hal taskiyo diyaarsanaa ama waxaa ka dhiman shahaadadii tasdiiqi oo ah tiimbari wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka dhiman ama qaab noocaas marka waxaa laga rabaa ardayga diyaargarow hore inuu sameeyo oo uu la yimaado shahaadadii dugsiga sare macal tiimbareedii wasaaradda arrimaha dibadda ay saaran tahay baasaboorkii uu la yimaado labada taskiyo uu la yimaado warqadii dhalashada warqadii caafimaadka oo mutarjama carabina dhinac ay ka tahay dhinacna Soomaali ama Ingiriis ay ka tahay waxyaabaha dhibaatada u keenay waxa laga yaabaa ardayga xilliga ay xirmayso saacado ka hor ama maalmo ka hor inuu xareena uu dhaho wadana tiknoolajiyadii ay aad ku adkaato markii dib uu saas ku caajiso waxa laga rabaa markii saan loo furo inuu ku bilaabo mar walba ardayga waxaa muhiim ah inuu ku dadaalo asaga inuu gacantiisa ku xariisto saasa muhiim ah uu barto qaabka loo xareenayo si arday kale bari uu caawiyo laakiin hadaad mar walba qof ku daba feeshid oo ii xarey aad ku jirto qofkan uu mashquul karo wax walba ku dhici karo marka waxaa fiican aad xariisatid oo aad dhameysatid ardayga markuu jaamacadda dhameeyo jaamacada islaamiya waxaa loo ogol yahay baaj markuu dhameeyo in maajisteer uu imtixaan u galo haddii la aqbali waayo dibloma u furan oo hal sana diblomkaas hal sana markuu galo la aqbalo shahaadadii uu jaamacadda markuu soo qaato wuxuu intuu jaamacadda uu dhiganayo diblomkaas sanadka uu wado wuxuu fursad u heli karaa in jaamacadaha Sacuudiga master inuu ka raadsado oo taasaan ahayn leena jaamacada islaamiya ardayga mar hadduu jaamacadda dhameeyo un systemka magaciisa uu ka baxo mar labaad jaamacadda uma soo xareysan karo iska dhaaf arday kale meel kale wax ka bartay iska wadhaaf taas waa taa waxaa kaloo jira Sacuudiga gudihiisa jaamacadaha ardayda jaamacadaha Soomaaliya wax ka barteen oo baaj ka dhameystay master way u xareysan karaan sida jaamacadda Qasiim oo kale arday badan waxaa jirta inta ka dhameysatay ama jaamacadii dhameysatay meesha wax ka barata jaamacada Malik Sacuud oo kale way jirtaa qura ma badna laakiin way jirtaa jaamacado fara badan ah jiro master ka qaata ardayda jaamacadaha Soomaaliya wax ka bartay ka dhameystay arday badan ganna jaamacad Muqdisho dhameystay oo xagga master u aaday marka insha Allah waxaan rajaynaynaa ardayda oo baajka Soomaaliya ku dhameystay master ka raadinaya fursadaas way jirtaa dukumeenti ay diyaarso markii ay furan tahay iska xareyso nasiibkaaga adaan idin xasuusiyo jaamacadda islaamiya ardayda codsan karta kaliya ardayda baajka rabto waay yani arday jaamacad ka soo dhameystay Muqdisho ama gobolada Soomaaliya masteran xareysana waxaan u xareysana jaamacadda islaamiya kama jirto fursadda kaliya lagu ogol yahay waa ardayga dugsi sare dhameystay macad sharciga dhameystay oo baajka kaliya raadinaya laakiin haddaad rabtid jaamacada islaamiya ma jaamacadaha kale fursadaas way jirtaa hadaad arday jaamacad dhameystay Muqdisho ku dhameystay ama gobolada ku dhameystay aad rabtid inaad master diyaarisid oo scholarship bilaash min xaq rabtid Sacuudiga ka rabtid jaamacada islaamiya ma jaamacadaha kale way ka jirtaa fursadaasi way yaraan kartaa laakiin bas sideed kale way jirtaa waxay ka jirtaa Riyaad ay ka jirtaa Qasiim ay ka jirtaa Damaam ay ka jirtaa gobolada Sacuudiga oo dhan waa laga helaa insha Allah billahi kariim marka adii iyo dadaalkaagii fursadaadii
iyo diyaargarowgaaga ku xiran tahay.